deeqdan lacageedu waxa ay ka timid jaaliyada gabdhaha ee ka soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal isla markaana ku dhaqan magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka waxaana la soo gaarsiiyay oday ah oo in badan ku xanuunsanaya gudaha Boorama kaasoo fin ugu soo baxay wajiga isla markaana dilac sameeyay oo ku fiday qayb ka mid ah wajigiisa xilligaana la tacaalaya xaalad caafimaad xumo aad u daran isla markaana mudooyinkii ugu dambeeyay xaaladihiisa dhanka caafimaadka iyo dhaqaalaha ay aad hoos ugu dhacay isla markaana aynu ka baahinayna TV-gan caalamiga ee Somali Channel odaygan waxa lagu magacaabaa Daawud Axmed waxaana deeqdan lacageed ku wareejiyay ururka samafalka Tawfiiq ee ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal oo xubno ka yihiin Xaaji Cabdiqaadir Aadan Nuur Mahdi Aadan Riiraash iyo Hinda Atoosh Aare waxayna deeqdan ku wareejiyeen odaygan waxayna ka hadleen madashii deeqdan lagu wareejinayo waxaana hadaladooda kamid ahaa waxaan soo gaarin maanta lacag dhan $300 oo soo diray walaalada jaaliyada joogta wadanka Minnesota $300 waxa soo diray Daawud oo wuxuu shashada uga aragteen Daawud sabayni sheego cad baa laga qaaday cadkii Nairobi baa la geeyay koob soddonka bisha ay jawaabtii siimanaysaa markaas qalin lagu sameyn doono insha Allah hadii la yiraahdo waxaan leeyahay hablaha lacagta soo diray sababta kharaajisa Daawudna caafimaad sare aan ilaahay ku siiyo oo Daawud ugu dambeeyay runtii aan ilaahay naga rajinay ilaahay miisaankiisa xasanaadka in ilaahay nagu daro ilaahay midkiina ilaahay nagu xifdiyo nafiina in ilaahay ku xifdiyo qarbiya joogtin ilaahay inuu ubadkayna ilaaliyo odayaasha inuu ilaaliyo ilaahay aakhiri adduunba ilaahay nagu nimceeyo qeybadaan faa'iideysan iyo intii la soo gudbay gobolka Minnesota Allah barakeeyo Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama